Wayeelkii waxgaradka degaanka barkada cali xirisi oo dhinaca bari kaga beegan degmada Waridaad ee gobolkaasi Saraar ayaa cabasho xoogan ka muujiyay shirkada isgaarsiinta casriga ah ee Telesom iyagoo Wayeelkii waxgaradkan ay sheegeen in shirkada Telesom ay degaankooda u diidan tahay adeega internetka ee 3G-ga waxayna sheegeen inay ku noqnoqdeen xafiisyada Telesom ay ku leedahay gobolkaasi Saraar isla markaasina cabashadooda hoos looga qaadi waxayna ugu baaqeen Wayeelkii waxgaradkani shirkada Telesom inay ka jawaabto cabashadooda haddii kalena ay dhigi doonaan kaararka ay sitaan ee Telesom waxaanu ka cabanaynaa Telesom baanu ka cabanaynaa iminka kaararka aanu haysanaa way ka soo horeeyeen kuwa Somtel dadku badankiisu wuxuu badan yahay Telesom waxaan ugu xidhiidhiyaa xitaa wax internet iyo waxaan ugu xidhiidhiyaa ka hadalkii baan ugu xidhiidhiyaa marka saxaafadda waxaan leenahay warkayaga waa inaan naga qaadano si tafaatiir noogu gudbisaan Telesom haddii aanan ka helin adeegyada bulshada iminka qaryadani gobolka Saraar waxa weeye waa meesha ugu balaaran waa meeshii Faysal Umar mushtaag lahaa tan iyo saaka waan soo soconay Saraar majidkii Siraadba waxa weeye waa dhul balaaran dhulka balaaranna internet iyo waxaan ugu xidhiidhiyaa ku hadalkii marka anagoo ka wakiila degmooyinka kale iyo tuulooyinka kale ee nagu hareeraysan waxaan leenahay haddii aad waxba ka qaban weydo kun jeerna waanu cabanay waxaan maamulaa anaga maxamed shirena kun jeer wuxuu yiri anigu internet idin maayo haddii aanay internet aanay noo hayn Telesom oo aanay baahiyaha dabooli karin kaarka aanu sidano waanu qubaynaa wixii maanta ka dambeeya saxaafadayada waxaanu qaadan doonaa kaararka kale ee Somtel baanu qaadan doonaa haddii aanay baahiyaha iyaga si degdeg uga soo jawaabin wassalaamu calaykum waxaan anigu ka hadlayaa qaybtan isgaarsiinta 3G-ga shaqaalaha wadadaanay dhibaatada noogu weyn waxa weeyaan xataa halowdii baan weynay dunidii waanu ka dhaga beelay waanu yaabno waxaan meeshan miyaan isgaarsiimuhu aanay iman deemka waxaanu ku siganaynaa inaanu kaarar kaba u daadino iyo inay wax ka qabtaan labada waxba kama dhaxeeyaan meesha dhowr sanadood baan ku cadilay 3G male halow male anigu intaas ka hadlayaa wallahi qof hadlayaa khadka aad magaalada ah 2G-ga waxaan ka codsanayaa Telesomta samteesha tii noqotaba haatay in la soo daayo 3G-ga ama baahida weyn aan qabo waata in magaalada uu qabto haddii magaalooyinka agaarka haddii magaalada xagan waxa ka xigta 15 kilomitir waa 3G weeyaan ta xagan ka xigta bariga waa 3G baahida weyn oo magaalada qabto haddii ay rabtaa waa khadka 3G-ga waa inoo sii daayo khadka 3G-ga shirkadu Telesom wali bay lagu gacan saydhay waxaan hadda raacsanahay in 3G-ga laga soo daayo oo labada shirkadood Telesom iyo Somtel bay soo daayaan 3G-ga inta sana lagu codsanay Telesom waxa uu ka cabanaynaa 3G-ga laga soo daayaan leenahay waxa weeye haddii kale kaarkan iska tuuro kaarkan isqubayna haddii kale saasaynu ku wargeynaa Telesom wax faa'iido normal mar haddaan 3G laan aan bilaa 3G nahay waxa weeye waynu leeyihiin magaalooyinka nagu dhow kala ateenka 3G-ga oo loo soo dooyay waa mobilka asaasta ama ka dhagaxaas kasta kaarkaas la ama kala baxda waxaanu sheegaynaa haddii qolada barkada ay noo soo dooyay ay kari weydo halka kari weydo waxaan leenahay samtaashaan u cabanana inay noo soo dooso 3G-ga